waxaan kala soo hadlayaa hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho maalinkii saddexaad waxa ka socda shirka culimada Soomaaliyeed oo sanadkii labaad halkan lagu qabanayo isla markaana ay soo agaasintay wasaaradda diinta iyo qofta xukuumadda federaalka Soomaaliya shirkan waxa furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud qodbad uu ka jeediyay waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo qoseeya culimada iyo wadajirkooda iyo sida looga baahan yahay inay door weyn uga qaataan mideynta ummadda Soomaaliyeed iyo dagaalka qawaarijta al-shabaab sidii dalka looga xoreyn lahaa sanadkii hore culimada shirkoodii oo aha markii ugu horeysay la qabto waxay ku cadeeyeen fikirka culimada ee dagaalka ka dhanka ah kooxaha qawaarijta al-shabaab waxayna ka soo saareen bayaan iyo sidoo kale warcad oo ku saabsanaa in nimanka qawaarijta dagaalkoodu yahay mid xalaal ah isla markaana shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay in nimankaasi dagaalkoodu ay u midoobaan culimada Soomaaliyeed oo gaaraya ku dhawaad 300 oo ruux oo ka kala yimid dunida dacaladeeda ayaa halkan isugu yimid isla markaana shirkan lagu casuumay oo ka qayb galayaan waxaana shirkan sanadkan looga hadlayaa midnimada iyo wadajirka culimada Soomaaliyeed qaar kamid ah culimada shirka qayb gashay ayaanu wareysanay waxaana hadaladooda kamid ahaa sida tan ay Soomaaliya midowdo waxa laga baranayaa in ayagana waa laga takhalusayaa cidii hadda aan is soo dhibtana tacaamulka dawladda ugu talagashay la marinaya cidii kala tarde waa laga takhalusayaa marka waxa weeye ma arko waxaan u arkaa in ayaga shirkan inuu ayaga dhibaatadooda yahay saadoo waana halka qolo oo midnimada dalku ay faa'iidada caamka u leedahay hay'ad ayaga wax kasta oo la sameeyo waxa asal u ah inay midnimo heli karaan waana halka geed oo ay hooskiisa harsan karaan midnimada Soomaaliya had noqoto midnimada culimada ha noqoto mar walba qofka dumarka waxa anfaca waxna ku tara bulsho is haysata inuu ku hoos nool yahay waxaan aaminsanahay marxaladda ay ku jirto Itoobiya hadda ay marayso inay waxtarkeedu inay Soomaaliya damaceedii soo jireenka ah inay maanta fulisay waa mid adag laakiin bulshada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed waxa looga baahan yahay inay adkeeyaan wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed wadanka wuxuu soo maray burbur badan dagaalo sokeeye laga soo baxay hogaamiye kooxeedyaha laga soo gudbay wadanka meel foga laga keenay hadda waagi hore heer oo maray haddana heer uu maraya heerka hadda uu marayo waxa lagu gaaray dulqaadka dumarka ama hooyooyinka Soomaaliyeed lagu gaaray waxa kale oo aad u badbaadiyay kala duwanaanshaha guurka qoysaska iyo qabaa'ilada kala duwan ee isguursada qabiilka gabar aad ka qabto waxa la dhihi jiray reer hebar gabar ay naga qabanayaan lagu duulin oo kaleeto waxyaabahaas oo kaleeto waxay badbaadiyeen dumarkii waxay badbaadiyeen dad badan oo isdagaali lahaa inuu dabkoodii sida ku damo marka door aad u muhiim ah ay dumarku ka qaateen nabadda fasahaadka waxyaabaha uu ka yimaadana waxa kamid ah cadaalad darrada waxa kamid ah mataqaana dhibaatada iyo ilmuhu qaabka loo soo barbaariyay waxa kamid ah faqriga ayaa kamid ah waxyaabaha fasahaadka keena oo qofku markuu faqri yahay oo dhaqaalaha ku dhacdo waxa imaan in wax booba wax dhaco dhibaatadaas ka imaan karta marka mowduucna kaas aha wuxuu ku noqonayaa jab xoog badan maxaa jira taa lafteedu waxay noqonaysaa culimo u noqoto ma helayaan dad iyaga muxuu qiil u raadiya ma helayaan dad iyaga u qiilday ma helayaan marka waxay noqonaysaa marka koobaad iyagii inuu soo afjarmo waxa laala wixii ay isticmaalayeen oo ay dadka ugu beesheeyeen inay soo afjaranto waa kow midda labaad bulshada Soomaaliyeed waxay ogaanaysaa mar haddii culimadii Soomaaliyeed qaybaheedii kala duwanayd ee kooxahoodii kala duwanaa ay u midoobeen muxuu ahaa danta guud iyo maslaxada guud bulshadiina waxay ogaanaysaa maslaxada guud ilaalinteedu in waajibta iyo qiimaha ay leedahay dowrka marka oo shirka waa dowrka haweenku nolosha ku leeyihiin oo kale dowrkeena shirka maxaa la yiraahdaa waa dowr buuxa panelka iyo warjeedinta iyo furitaanka iyo kulli mana ahan shirka kaliya waxa kaalin weyn haweenku ay ku leeyihiin culimada ah dacwada iyo diinta in dadka la gaarsiiyo diinta la faafiyo munkarka in laga hortago waxyaabaha xumaanta ah waxa dareemi kartaa shirkii hore xilli wuxuu ku soo aaday khawaarijta al-shabaab dagaal lagu jiro deegaano badan hadda maaragtay wuxuu shirkan labaadna wuxuu ku soo aaday xilli deegaano badan laga xoreeyay cadawga ummadda Soomaaliyeed shacabkii Soomaaliyeedna ay ku dhiirideen in la dagaalami karo marka shirka hore waa miri dhalay ilaahay idinkiisna kana waxaan rajaynaynaa inuu maaragtay khawaarijta ciribtirkooda inuu maaragtay noqon doono ilaahay ka rajaynayna shirkan ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo maalinta bariya waxaana culimada ay ka soo saari doonaan war murtiyeed ay u dhan yihiin waxa shirkan ku soo aadaya xilli dawladda Soomaaliya ay dagaal adag kula jirto kooxaha khawaarijta al-shabaab
oo naf iyo nolol u diiday shacabka Soomaaliyeed waxaana la filayaa culimada doorkooda inay cadeeyaan maalinta berri ah isla markaana ay soo saaraan waray u dhanyihiin Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho